qisadan waxay dhacday 10 sano ilaa 11 sano ka hor. Wadankana ujeedin waxa waaye New York. Anigu magacaygu waa Axmed. Wadankeena waxaa laga diiday khamro oo dhan. Anigana waxaan suubin jiray supermarketka banaankiisa ayaan istaagi jiray, qof ayaana u dirsan jiray. Kii lagu arkaa khamrani waa la xiri jiray. Ninkan ayaa dhahay anaa kuu keenaya sug. Cabaar ayaan yara sugay, xoogaa wuu soo yara daahay. Kadibna waxay igu soo biireen 2 gabdhood. Waxay dhaheen anaga waan kula cabaynaa, diyaar waayaan dhahnay. Ninka waan sugnay, ugu dambeyn wuu keenay. Aniga waxaan jiray 16 sano, waxayna ahayd maqrib. Waxaan is dhahay ama haddii lagu qabto anoo 16 sano amaad baxar gashaa. Caagaga ayaan ku shubanaynaa khamrada. Waxaan soo galnay maqaaxidan Donald waa busy waayo dad badan ayaa ka buuxoon maasha. Annaga nagama shakilinay, tartiib ayaan waxaan galnay, suulida ayaan wada galnay. Waxaana bilaabnay howsheena oo qajaclayaasha ayaan ku kala shubnay, u kala qaybinay qajaclayaasha khamrada. Ugu dambeyn waan ku guuleysanay arrintaas, waana soo baxnay. Sidaas ayaan maalmoba ku weynaa, anaga mana ka caajisi jirin. Cidna mayna dareemin waayo maasha ayaa ahayd busy. Maalin kasta saasaan u imaan jirnay. Maalintii dambe annagoo imaana maasha ayaa sidii ayaan suubinaynay oo khamrada ayaan qajaclaha ku kala shubaynay. Waxaan dareemay shanqar oo lugo kabo soconayo oo dhankeena u soo socda. Aad ayaan u naxay, waxaan dhahay maadaama 16 sano jirtid, haddii lagu arko adoo 18 sano gaarin, xabsi ayaa lagu dhigaya, maxaa sugnaa. Waxaan arkay wax aad iyo aad u naxdin badan. Waxaasoo ahayd saa kor haddaan fiiriye waaba qof oo naga soo fiirinayo. Qofka waxaa ku qiyaasay 30 jir ilaa 32 jir. Markaas waa wada naxan ku digeen, ayaga haddaa way wada arkeen. Ninkii ayaa si fiican inuu wejigiisa sida kale u soo leexiyo dhahay magaciina ii sheeg, haddii kale waan nii baxreenayaa. Aniga horta arrintaas aad iyo aad ayaan ugu xumaaday, maadaama uu qofkan ka fiirsanayo qof walba uu masquul ku jiro, uu maasha duleelka ka fiirsanayo hadduu masquul galaada. Aad ayaan u xanaaqay. Markaasaan dhahay waryaa, adiga waxaad ka fiirsanaysaa dadka maashan soomahano, maasha maqaaxidan Donald eedu ma walaanbe, maashan ayaa ka fiirsaa dadka. Saa'id inuu qosla ayuu dhahay magaciina mar kale ii sheega, haddii kale waan nii baxreenayaa. wuxuuna dhahay khamradan waa inaa qaar laga siiyo. Aniga aad ayaan markaa u xanaaqay. Waxaan rabay ninkan inaan maanta juciyadii ciil ayuu iga keensiiyey. Markaasuu dhahay guriga xaafadda degantiin iyo maasha nambarka guriga degantiin sheega, aan isoo booqday ii sheega. Xanaaqa ayaa saa'id igu kordhay. Ilaa ninkan babaasha ayuu xoog u riixay, saaba maashan ayuu ka fiirsadaa dadka duleelkaas. Aad ayaan u cabsanay, orod ayaan ku soo jabsanay. Annagoo aad iyo aad u naxsanayaan banaanka imaanay. Waan neeftuurnay, kadibna aniga ayaa aad u xanaaqay maadaama dadka maasha ka fiirsanaya, waayo musqushan waxay u badan yihiin gabdhaha ayaa galo musqusha. Gabdhahana aad ayay ugu badantay, maashaas ayuuna ka fiirsado duleelka. Aad ayaan anigu xanaaqay markaas. Waxaan ogaaday ninkii inuu dadka ka fiirsado maashaas. Aad iyo aad ayaan ugu xanaaqay arrintaas. Waxaana go'aansaday inaan waco booliiska. Waxaan wacay booliiska ayaa maasha imaaday. Waxaan u sheegay arrintii oo dhan. Waxay dhaheen kaal noogee, ninkaas ayaa ka fiirsamaya dadka maashaas. Sida ayaan u xiray. Haddaan ilaa dhammaadkan la soo gaartay asxaabay, waad mahadsantihiin. Nabadgelyo.